ma iibisaa kabaha isla markaana ma ku dhiban tahay soo dhaweynta iyo wax ka iibinta macaamiisha? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, dhammayso muuqaalkan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada casharkeena maanta waxaan qaadanaynaa mazungumzo. Mazungumzo waa wada sheekaysi, wuxuuna ku bilaabanayaa sidaan: habari ya leo, habari ya leo, sidee leeyahay maanta? Leo waa maanta. salaantan hal qofna waa ku salaami kartaa, dad badanna waad ku salaami kartaa. jawaabtuna waxay noqonaysaa nzuri sana, nzuri sana. aad ayaa loo fiican yahay. Sana waa aad ama zaid. unauzaje viatu? Su'aal ayaa la weydiiyey. waxaa lagu yidhi unauzaje, sidee baad u iibinaysaa? Viatu, kabaha. Unauzaje viatu, kabaha sidee ayaad u gadaysaa? qofka dukaanka jooga wuxuu yidhi niambie ii sheeg, niambie ii sheeg, unataka gani, kee rabtaa? Unataka gani, kee rabtaa? Gani waa kee. macaamilkii wuxuu ku jawaabay ngoja nichague kwanza, ngoja sug, nichague aan dooqde ama aan doorte, kwanza marka hore. Kwanza waa marka hore. su-aasha xigta marka wuxuu dhahay sawa waa yahay, unachukua saizi gani, unachukua saizi gani, saizkee ama cabirkee ayaad qaadanaysaa? Saizi waa size, gani waa kee, unachukua aad qaadanaysaa. marka waxay noqonaysaa sawa unachukua saizi gani, waa yahay, saizkee ayaad qaadanaysaa. wuxuu dhahay mimi aniga huchukua waxaan qaataa saizi, saizka ama cabirka ya namba 40, ee number 40. Number waa number, 40 waa 40. inta badan dadka waxay adeegsadaan tirada qaab English ahaan ayay adeegsadaan. marka waxay dhahaan number 40. wuxuu dhahay marka saizi hiyo, saizkaas, hiyo waa kaas, saizi hiyo, saizkaas ama cabirkaas, utaipata waad helaysaa, utaipata waad helaysaa oo ma weynaysid. macaamilkii wuxuu dhahay sawa waa yahay, laakiinse ama balse, niuzie iga iibi ama iga gad, bei poa, beec fiican. bei waa beec, poa fiican ama wanaagsan ama qiimo macquul oo kale meesha aan ka dhahno weeye. wuxuu dhahay qofka dukaanka jooga usijali, usijali, ha ka walwalin, wewe adiga ni mteja wangu, waxaad tahay macaamilkayga. Mteja waa macaamiil, wanguna waa kayga, wewena waa soo qaadateen, waa adiga. marka wuxuu yidhi usijali, ha ka walwalin, wewe adiga ni mteja wangu, waxaad tahay macaamilkayga. marka casharkeeni maanta halkaas ayuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. wixii su'aalahana waa soo weydiin kartaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.